ama dadka wax haysta hantiilayaasha in ay yimaadiin oo dhulkooga maal gashadaan in ay yimaadiin oo dadkooga wax la qabaan in ay yimaadiin oo dhulkooga qurxiyaan. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا قالي قيمها إيه قدرين تبضن ملك صودا فيها الدنيا أذكر جوكتين ما أنت إنتين نقلها اللينا ما أنت وحن جوجنا مقالة الصومالية مقالة الدربة أيان جوجنا هلكا أيان نقصو سلامنا حتى وحن كسوقنا هاي ومليون باركي وهلكا وعنصن مقالة الدربة هلكا اللي سميه هي صبضن هذا هس نحسوسية هسي ماشي اللي سميه وحاكم لها دربة ودلكيجا waan ku dhaataa inay saahayd baan jeclahay akhyaarta asxaabta waxaan ku jirnaa socdaalkii dheeraa ee ahaa socdaalkii dhulkaaga baro iyo cali dhaqan ayaan maxaa la yiraahdaa hadda ku guda jirnaa saan horaantii aan sheegnay waxaan joogaa magaaladii Darrabe ahayd ayaan joogaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan inaan imaado muddo dheer kadib inaan halkan imaado oo video iniga soo duubo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ininka daawan doona ayaa wax badan ka maxaa la yiraahdaa iyo oran doona wax badanna way ni xasuusin doontaa inta u badan dhalinyarta halkan imatay sawiraan ku qaadatay video iskaga duubtay maxaa la yiraahdaa ku heestay kuwa barnaamijka ku sameeyay kuwa maxaa la yiraahdaa mujaajiliis maxaa la yiraahdaa riwaayada ku sameeyay intan markay arkaan way xasuusin doonaan waliba si gaar ah waxaan halkan u xasuusinayaa dhalinyartii asxaabtii joogtay in dalkii aan ka imanay ama dalkii dibadda ka imanay asxaabtii ayaan si gaar ah u xasuusan doonaa waxaan joognaa waa wadnihii Darrabe biidni Ilaahi waahid al-ahad dhagaxdan iyada ah waxa lagu qaataa sawiraan ayaa lagu qaataa filmaan badan waa lagu shilay marka socdaalkeeni ahaa dhulkaaga baro iyo cali dhaqan ayaan maxaa la yiraahdaa ku gada jirnaa waxaan soo marnay meelo badan ayaan soo marnay tuulooyin badan magaalooyin badan oo dhulkeena kamid ah in badan way noo dhiman tahay haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa inaan inta noo dhimanna aan soo dhameystirno intii aan soo sii deynina intii aad daawatay way daawatay intii aan daawana waxaan rajaynaynaa insha Allah inay iyagna yimaadiin oo daawadaan oo ka qayb qaataan oo ina dhiiri galiyaan markasta waxaan u taaganahay inaan inila wadaagno ama inii soo bandhigno waxyaabaha dhulkiinu wanaaga iyo taariikhda ku maxaa la yiraahdaa ku duugan dhulkeenu waa dhul taariikhi ah waa dhul dihin weeyaan oo wali aan malaaqad laga darin dhulkeenu wali malaaqad laga darin dhulkeenu xaqiiqatan waa dhul dihin waxaanu u baahan yihiin dad badan oo inaga mid ah in ay dhulkeena ay maal gashadaan dhulkaaga hadii adigu aad dhisan weydid cid kale ayaa ka dhisanay marka waxaan rajaynaynaa dhulkan inaka leh inaan dhisano waxaan ku boorinaynaa akhyaarta ama dadka wax haysta hantiilayaasha in ay yimaadiin oo dhulkooga maal gashadaan in ay yimaadiin oo dadkooga wax la qabaan in ay yimaadiin oo dhulkooga qurxiyaan inta aad magaalo kale aad qurxinaysid waxa ka qurux badan adiga oo magaaladaada dhulkaaga maxaa la yiraahdaa qurxiya iska daa wax kale hadaad ka qaadid warqad yar oo ku taal lagu tuuray dhulka hadaa aad ka qaadid warqad yar dhulka hadii aad ka qaadid oo meeshii loogu talagalay aad ku tuurtid waxa ay ka dhigan tahay waxaad qurxisay magaaladaadii ayaad qurxisay waxaan leenahay dhalinyarta asxaabta hantiilayaasha cid kasta wax haysata dhulkiina wuu ni baahan yahay maanta dhulkiina wuu ni baahan yahay dhulkiina inaad maal gashatiin dadkiina inaad wax la qabtiin inaad dhiiri galisiin waan rajaynaynaa biidni Ilaahi kariim kuwan iyaga ah waa meelo badan oo taariikhi ah oo bilo odaygu dhac waxaan ka cabsanayaa inaan dhacaan ka cabsanayaa Allahu akbar ma sha Allah waata marka saxaabay waxaan rajaynaynaa niyahow in aad na soo buuqatiin inaad na dhiiri galisiin inaad subscribe-ka like-ga comment-ga aad nagu maxaa la garab istaagtiin hana hilmaamin qof kasiba waxa uu ku yahay dadkiisa ayuu wax ku dhaxyahay marka waxaan rajaynaynaa dadkaaga inaad
wax ku dhex noqotid waxaan rajaynaynaa dadkayga inaan ininka wax inagu noqono inaan ininka ina anfacno inaan ininka maxaa la yidhaha wax inii tarno ayaan rajaynaynaa wixii jira dhulkeenna in aan inii soo bandhigno hadday tahay taariikhda aan leenahay ee duugsan ee qarsoon hadday tahay horumarada ka jira hadday tahay wanaagga iyo maxaa la yidhaahdaa bilicda dhulkeenna hadday tahay in udgoonka maxaa yeelay dhulkeenna wuu dihin yahay waa dhul dihin waa dhul nadiifa waa dhul u baahan in hadda gacan la saaro marka intii dad kale gacanta ay noo saarin inaku aan gacan saarano aad iyo aad baan niin salaamaynaa waxaan ilaahay insha Allah intaan isku imi doono video kan lamida waxaan iga tegnaa sidaa iyo amaana Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh